Waa markii labaad oo magaalada Baraawe lagu qabto munaasabad aad u weyn oo lagu maamuusayo maalinta 8 Maarso oo ah maalinta Haweenka caalamka. Barnaamijkan waxaa soo agaasimay gudoomiyaha Uruurka Haweenka ee Gobolka Shabellaha Hoose oo ay barbar socdaan Uruurka Haweenka degmada Baraawe. Madasha ay munaasabadu ka dhacaysay waxay ahayd goob lagu soo bandhigayay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka, iyadoo mashxarad iyo dabaaldegba ay ka socotay goobta. gudoomiyaha Uruurka Haweenka ee degmada Baraawe Faadumo Gaabo Ismaaciil ayaa ugu horeyn madasha ka hadashay. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Cabdikariin Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha arrimaha bulshada, isaga oo hambalyo iyo bogaadinba u soo jeediyay haweenka ku nool magaalada Baraawe maadaama ay tahay 8 Maarso ee maalinta haweenka caalamka. haweenka adduunka oo dhan joogan ayay leedahay waa maalin munaasabad weyn u ah gaar ahaan haweenka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ayaga ku ugu dambeyntii gudoomiyaha Uruurka Haweenka ee Gobolka Shabellaha Hoose Maryam Mukhtaar oo madasha ka hadashay ayaa dumarka ku nool degmada Baraawe iyo guud ahaanba caalamka u soo jeedisay hadallo ay ku dhiirigelinayso horu socodkooda. Fuad Shoble, JTV, Baraawe.